بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال idilkiinba meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka Marwo aad toddobaadkii mar kala socotaan Stan TV barnaamijkan ayaanu inta badan kaga hadalnaa ama aanu ku falanqeynaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha hor istaaga haweenka Soomaaliyeed horumarada ay sameynayaan iyo waliba himilooyinkooda nololeed toddobaadkan barnaamijka waxa marti igu ah Aamina Cabdullaahi Kaariye oo ah hooyo wax baratay dhawaana ka qalin jabisay heerka labaad ee jaamacadda Aamina ayaa waxyaabo badan isugu wareysan doona barnaamijka Aamina ku soo dhaw barnaamijka Marwo aad u maasantahay Naciim oo ku dhawaad barnaamijka Marwo isbuuclaha ee ka baxay TV-ga Astaan waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ay nooga aqbashay inaan barnaamijka kugu martiqaadno waxaan rabaa su'aalo dhowr inaan ku weydiiyo maadaama toddobaadkan aan barnaamijka marti igu tahay su'aalaheena inta aan guda galin marka hore Aamina Cabdullaahi Kaariye waa tuma dadka qaar aan ku aqoonin marka hore isbar ma sha Allah ani magacayga waa Aamina Cabdullaahi Kaariye waxaan ahay hooyo heesta caruur intii caruurtii haysatay ku guda jirtay fildiga waxbarashada aan marna uga bixin haddii aan ka hadlo waxbarashadeedii primary iyo secondary waxa ku soo qaatay wadanka Kenya jaamacadaha qaar kamid ah waxa ku qaatay Soomaaliya post graduate kala duwan waxa ku soo qaatay wadanka Bangladesh intaas ayaan waxbarashada wadani waxaan ahay hooyo oo waxaan hooyo noqday sanadkii ugu horeeyay jaamacadda markii aan bilaaway degree-gayga koowaad ee bachelor-ka waa tahay Aamina warajeenaya dad badan inay dulbadiiba ay ku wada karteen su'aalayn ayaan sii guda galayaa waxa tahay hooyo wax baratay sida hore u sheegtay misna soo martay xaalado kala duwan bal waxaan rabnaa warbixin inaad naga siiso xaaladahaasi dabcan hooyanimadu waa dawlad gaar ah oo aad u adag markaan ku leeyahay dawladnimo waxa waa dawladnimada dadka madaxda ka ah maanta fahmi karo culayska ay leedahay hooyanimadana waa la mid tahay waa dawlad yar oo dhisan oo u baahan managerialkeedii iyo waxyaabaheedii dhisnay marka hadaa tiraahdo dawladdaas anoo haayo aan wax baranaa dabcan waa struggle badan waxaana dareemi kara qofkii waxbarashadii waday hooyana ahay anigu waxaan kamid ahay habeenkii nasiib ku yeeshay inay wax bartaan haddana hooyo noqdaan maadaama aan nasiib u yeeshay inaan hooyo noqdo anigoo da'yar oo haddana wax baranayo waxaan la kulmay caqabado badan oo aad u fara badan ee kamid tahay in aan isku wadi waayo dawladii guriga aan ahay iyo waxbarashadii oo aan la kulmay caqabadooyin kala gidgidisan ee kamid ahaayeen in guriga qofkii la wada sugayo aniga aan ahay haddana galaaskii la isugaayo oo aan ahay arday 10 laga rabo arday imtixaan laga rabo arday assignment laga rabo saasay tahay waxaan yeeshay wax la dhahayo mission in iga go'nayd inaan wax barto markii iga go'nayd inaan wax bartana waxaan isku dayay 100% inaan gurigeygana manage gareeyo wixii barashada aan rabanay ama meesha aan rabay inaan gaaran waan gaaray taas oo aan dhigi karo maanta dabcan haddaan haysan dhiirigeliyaal badan oo maanta aan ku taamayo meesha taaganahay soo gaarsiiyay ma gaari lahayn dhiirigeliyaashaas ay ka koob yihiin waalidkay iyo caruurteeda abood iyo waliba caruurteeda dabcan marka depression soo qaadato guriga waa mid ku farxad gelinay marka galaaska boring ku soo noqoto oo adoo arday oo soo rafaad ah guriga imaato caruurteeda waxay qayb ka ahaayeen dadka farxad gelinay waxaan dareemayaa farxad taasaan ku ilaaway depression tirada badnaay aan galaaska kala soo kulmay sida hore loo sheegaba dadaalaha uu gaaraa qofka marka uu go'aan leeyahay meesha uu rabo gaari karaan isleeyahay wali su'aalihi ayaan ku sii socdaa inta badan gabdhuhu marka ay reer yeeshaan waxay ka haraan waxbarashada Aamina taas maxaa u sababeynaysaa taas waxaa u sababeynaya bay'ada environment-iga ee ku hareeraysan gabdhaha ayaa mar walba niyad jebinaya oo leh maxaad ka doonaysaa jaamacad ama maxaad ka doonaysaa iskuul hooyaaba noqotay dabcan riyadu ama waxbarashadu ma ahan wax ka celinayo hooyanimadu sida ognahay hooyadii muuminiinta Aisha radhiyallahu anha waxay dhahday dumar waxa ugu wanaagsanaa kuwii ansaarta waayo xushoodka kama u sareebin inay diinta bartaan dabcan waxa baran kartaa adigoo xijaaban oo xishoonaya kaama reebaysa inaad wax baratid xishood iyo waxyaabo lamid ah marka waxyaabaha aan isleeyahay maanta ani ahaan dumarkii markay guursadeen waxbarashada way ka hareen waxay tahay in la niyad jibiyay oo hadallo ku habooneyn la dhahay maxaa wax ka baranaysaa hooyaa noqotay iyo gabar wax baratay jika u dambeysay ereydaas aad u adeegsadaan Soomaalida kuwaasna waa kuwa dad badan oo maanta gabdho badan oo maanta bulshada meel fiican ka joogi lahay ka reebay waxbarashadeeda ama batatan baniyad jibiyay inay waxbarashada sii wataan taasaan anigu u saameyn lahay waa environment-ii ku hareeraysan gabadha
balse bay-adaas ku hareereysan ee gabadha u diidaysa inay wax barato iyada haddii ay go-aan qaadato mis dhihi karnaa way kasoo bixi kartaa. dabcan haddii ayada go-aankeeda uu yahay go-aan strong way kasoo bixi kartaa haddana ay haysato dhiirigelin aad ay u muhiim u tahay dhiirigelinta haddii lacala ka hesho dhiirigelinta wadaadkeeda ama waalidkeeda oo kaleeto oo ilmihii xilliga ay ku maqan tahay waxbarashada ka caawinayo waxaan isleeyahay gabadhaas way ka guulgaari kartaa meesha ay u socoto dabcan. waa sax sidoo kale waxaa jira gabdho kale oo kuwa cagsi ku ah oo markii ay reer yeeshaan jecel inay wax bartaan oo ay noqdaan gabar wax baratay misana horumar wadankeeda usoo kordhisay kuwaas oo kale waxaa caqabad ku noqon kara reerka loo guuriyo oo kale oo dhihi kara maxay tahay gabadhan wax baranaysa. dabcan way jirtaa waana dareemi karaa wayna dhihi karaan inay dhahaan reeraa leedahay caruuraa leedahay maxaa kaa jira waxbarasho waa lagu guursaday taasna waxay ku xiran tahay gabadha iyo lamaankeeda inay ku heshiiyaan in gabadhuna ay ka dhaadhiciso waxbarashadan ay wax baranayso inay horta marka ugu horeysaba kusoo celinayso gurigiisa iyo caruurtiisa markii xigtay environment gaaraysaa waxbarashada gabar walba maanta wax baratay biyoratoon waxay ku celinaysaa caruurteeda iyo ilmaheeda dabcan haddii mar caruurta ilmihii ka fargaraysan environmentiga markaasay gaaraysaa waa malee karaa xoogaa inay saameynayso familka inay ku carqaladeeyaan inay gabadhii waxbarasho aado ama ay ka niyad jebiyaan. waa tahay taas balse waxay u muuqataa hadda mid sii dhamaanayso gabar walba waxaa loo ogolyaa wax inay barato dhiirigelinta ugu horeysa waxay ka haysaa xaajigeeda oo dhahaa waa inaa wax barataa oo jaamacaddii aa dhamaystirataa. maasha allah waa arkay markii ani xilligeygii ma xoogaa aada uma jirin laakiin sanadahan dambe waxaa umaleysaa inay aada usoo kordhayaan wallahi aadaan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay gabdhahaas inay dhiirigelintaas ay ka helayaan lamaankeeda muhiim u tahay meel fiican gaarsiinayso. waa tahay daawadayaal weli barnaamijkeeni marwe ayaan ku guda jirnaa aamine cabdulaahi kaariye ayaa marti igu markan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxbarashada intaad ku guda jirtay caqabadaha kusoo wajahay si beri gabdho badan oo soomaaliyeed wax baranaya ay cashar uga noqoto si uga gudbaan iyaguna. maanta qof walba wuu dareemi karaa hooyo oo guri joogta haddii tiraa waxaan baranaa waxaa soo wajihi karo challenges tira badan oo aan maanta inta kusoo koobi karin haddana challengeskaas haddaan hal iyo labo ka tusmiyo waxaa kamid ahay in xiliyada qaar jaamacadda imtixaan anigoo leh ama imtixaankii uu kusoo aado xilligii aan xilligaas xilli u dhow oo kale aan umulo challengiga ugu weynaa ani aan la kulmay challengigaas oo ahay anigoo less than week dhalan inaan inta jaamacaddii tago exam paper soo sameeyo haddana soo laabto oo isbuuc dhan saas anigoo xilligii ku jiro barbariamka ama xilliga umusha loo yaqaano anigoo ku jiro challengigaas ay ugu dhib badnaay iyo challenge xige oo ahay mar aan banaanka ku maqnaa wadanka banaankiisa aan ku maqnaay galaas anigoo joogo inta la dhahay imtixaana ku jirtay imtixaana ku jira dabcan imtixaankii anigoo ku jiro waxaa la ii sheegay in dabcan gurigii aan kasoo tagay oo kaleeto in caqabad ku dhacday dadkii gurigii ilmihii ila joogay ii sheegaan in wax jiro imtixaankii aan kici karin impressionkeygii oo dhan oo isbedelay dabcan qof inta lasoo wacla dhaha gurigaada saan niyad imtixaankii iyo waxaa kusii wadato ma lahan dabcan challengiga aada u tiro badan yahay xiliyadii ugu adkaa xilligaas waxay ahayd oo aan imtixaanka galayo oo aan hooyadan ahay umush ahay cunugar isugaayo dabcan anigana aan ahay hooyo umuloon dhaqdhaqaaq badan aanan geli karin iyo challengeyaasha kale waxaa kamid ahay in oo mararka qaar habeenkii oo kale adigoo cunug ku dhafray subaxii oo kale galaaska saacado badan laga rabo galaaska inaa ku hurdata laga yaabo dabcan ardaydan kula fadhiis kaamoor qaban waxaa ku sugneed challengeyaal badan ay ahaayeen dabcan waa u baahnaa in loo dulqaato si looga gudbo. waa tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qof walba oo horumar gaara ama qof walba tilaabada uu qaado ku guuleysta wuxuu leeyahay dad dhiirigeliya oo u sameeya qofkaas inuusan gadaal usoo laabanin ma jiraan dad aad tilmaamayso hal iyo laba aad leedahay dadkaas oo dadkii ugu badnaa ay dhiirigeliyeen. dabcan dadkii ugu badnaa ay dhiirigeliyey maanta hal qof aan rabaa in halkaa uga mahad celiyo caruurteyda aabeed ayuu ahay dhiirigeliyaha ugu weyn ee aan haystay mar walba ee idhahayay hore u dhaqaaq waxba ma ahan semesterkii waa dhammaan rabaa imtixaankii waa ku gudbaysaa ha ka baqin qofka keliya dhiirigelinta ugu weyn ee xag financial iyo xag supportive aan ka helay wuxuu ahaa ilmihayga aabahood aadaan ugu mahad celinaya. waa tahay waxaan rabaa aamin inaad warbixin naga siiso heerka labaad ee masterka iyo maadada aad kusoo baratay intuba.
ani waxaan diyaariyey heerkayga labaad waxaa la yirahdo MPH Master of Public Health fiildigiisa Reproductive Child Health ama RCH wax loo yaqaano ee wadanka Bangladesh. waa tahay maadaama kuliyadaas ama maadadaas la barto waa maado qaas ah inta badan ma arkin gabdho Soomaaliyeed ee soo barta aad waxa kamid ah gabdhihii ugu horeeyay ee soo barta inaad kuliyadaas doorato maxaa kugu kalifay? waxay u kalifay markii laga hadlaayo hooyadii dhalaanka wadankeena saa ogtahay mortalitygan aad buu u sareeyaa dabcan dhimashada hooyadii dhalaanka aad u badan tahay top 10 oo waxaan ku jirnaa ugu dhimashada hooyadii dhalaanka badan caalamka maanta waxay u kalifo kaleeto waxaan arkay barnaamijyada oo artikalada ee naga daawacaan hay'adaha ay ku leeyihiin mortalityga intaanu maraya fertilityga intaanu maraya waxyaabahaas oo public health issues quseeyo ayaa igu kalifay dabcan inaan barto si aan public healthiga wadankayga issueska aan wax uga qabto dib ugu soo laabtay wadankaaga dabcan waa tahay daawadayaal wali barnaamijkeena ayaan ku guda jirnaa qaybihiisii dhexe ay barnaamijka ayaan mareynaa markan waxaan soo qabanayaa xubnadeena joogtada ah mid kamid ah markan iyo xubinteena qurxinta waan isku soo laabaneynaa xubinteena qurxinta barnaamijkan ay qayb ka ahayd barnaamijkan ku soo laabanaya markana aamin waxaan rabaa markan inaan ku weydiiyo sidee waxbarashada iyo hawsha guriga isugu maareysay? dabcan waa su'aal wanaagsan nimco waxaan isugu maareeyay dabcan sida ogtahay dumarka Soomaaliyeed waa dad maxaan dhahay u dhashay inay maareeyaan managementii gurigooda hooyo waxa arkaysa maanta aan xataa primary soo dhigan haddana guri qoys more than 15 person ku nool maamuleyso so managementiga waxaan isleeyahay dumarka Soomaaliyeed waa wax iyaga ku maneystay ma ahan wax oo class laga soo bartay managementigaas oo dumarka Soomaaliyeed lagu maneystay ayaan kamid ahay waxaan isku maareynayaa glasskeyga iyo waxbarasho iyo gurigeyga inaan time u yeesho glasska xilliga aadayo ka hor inaan hawlihii gurigeyga iyo ilmaheyga iyo wixii qusay inaan sameysto si aan ugu habsaamin glasskeyga u tago waxyaabaha saas isku challenge gareysa jiray gurigeyga iyo glasskeyga soo san habsami igu dhicin oo aan u ahaado arday mar walba glasskiisa soo xaadiro on time ahaado in time na ahaado waa tahay sidee bulshada ku arkayeen adigoo hooyo ah misan wax baranayo? dabcan bulshada qaar waa laga yaabaa inay perception gaar iga qabeen aragti gaar oo waa u edeb daro waxay jaamacad u dhiganaysaa ayadoo hooyo dadka qaarna waa laga yaabaa inay perception fiican iga qabeen waliba aan u arkay life ugu dhiirigelinayaan glass ma aadeysa ilmihii uga soo tagatay marka mar walba adiga waxa waaye positive iyo negative waa waxa afilaysa perceptionada qaar dadka kala kulmaysa waa tahay amna ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalihii ugu dambeeyay barnaamijkeena waxaad baratay public health waliba qaybtiisa RCH maxay tahay rajada mustaqbalka? rajadeeda mustaqbalka waxay tahay Soomaaliya oo laga waayay ama ka tagtay coverageka maanta ay ka gaarsiisan tahay dhimashada hooyadii dhalaanka dabcan maanta aad ay u badan tahay dhimashada hooyadii dhalaanka ee dalkeyga waxaan rajeynayaa insha Allah maanta aniga iyo dad badan oo soo baxayo iyo dad badan oo joogaba inaan wax ka bedeli doono dhimashada hooyadii dhalaanka ee maanta coverageka dheer gaarsiisan. waa tahay ugu dambeyntii maxaad u soo jeedinaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ama aad ku dhiirigelinaysaa? dabcan waxaan u sheegayaa bulshada Soomaaliyeed in aysan gabdhaha dib u dhigin fadlan u dir gabdhaha iyo wiilashaba dugsiyada marnaba ha uga eexan wiilashada gabdhaha sidoo kale fursadan maanta barnaamijka Marway Astaan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto oo aan maanta u mahad celiyo daladaha ee ka jira maanta daladaha aan dawliga ahayn ee maanta ka jiro Soomaaliya ee u istaagay muddo 20 sano ku dhawaad in ay sii wadaan waxbarashada asaasiga ah in ay gabdhuhu maanta wax bartaan waxa ka soo qayb qaata dalada dabcan disan dalad jiri lahayn dawlad laantii gabdho badan wax ma aysan baran waxaan rabaa daladahaas inaan u mahad celiyo sidoo kale waxaan rabaa inaan message gaarsiiyo message-kaas oo in ay gaarsiiyaan waxbarashada tuulooyinka dhow waayo gabdho badan oo maanta u baahan inay wax bartaan ay joogo meelaha semi ruralka ama tuulooyinka dhow oo waxa jira aan haysan fursadaas
waxaan jeclaan lahay daladahaas oo kale inay gaarsiiyaan tuulooyinka si gabar walba oo maanta Soomaaliyeed in ay wax barato waxaas ay baratane waa wax maanta gabar walba wax barata maanta waxay faa'iido u tahay wadanka waayo waxa imaanaya economic classka guriga hooyada iyo xaajiga inay isbedelaan uusan dhicin wax oo carqalada aysan ka dhicin ninka ama naagtiisaba labaduba perspective ay noo tahay calashaan waxaan ka baxaynaa qaniinimaan galina waxaan ka baxaynaa faqiirnimo soo waxay naga caawinaysaa marka maanta gabar walba hadaa wax barno in caafimaad qab ay caruurteeda ku karsato in xaq socio economic classkeennana uu noqdo mid level dhexe waa tahay waa rajeynayaa daladahaas inay fariintaada ay gaari doonto iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gabar walbana waxaan rajeynayaa inay kugu dayan doonaan gabdhaha qaar si hooyo wax baratay hadalkaagu ah hooyo wax baratay oo bulsho wax baratay hooyadu markay wax soo barato ma ahan hooyo banaanka intay aado wadamada kale wax ku kordhinaysa balse wax ku kordhinaysa jiilka cusub ee iyadu dhashay birina jiilkaas waxa laga yaabaa inay noqdaan madaxda birito fadlan gabdhaha wax barashada u dir markii aad gabar wax bartid bulsho wax ma aadan baran alla xaqiisa waxa looga jecel badan yahay kan cilmiga bartay iyo kan jahliga kan cilmiga bartay waa tahay aamin oo mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijkayga la qayb qaadateen aad u mahadsantahay waa tahay daawadayaal toddobaadkan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni Marwo ay marti igu ahayd Aamina Cabdullaahi Kaariyo waan rajeynayaa Aamina inaad wax badan ka faa'iideen daladeedana aad qaadateen inta toddobaadka soo socda aan ku kulmayna waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo iyo waliba xubinteena joogtada ahayd ee cunno karinta